بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome back. markale course-ka inoo socda intaan waxaan ka soo hadalnay cashirkii ugu horreeyay wuxuu ahaa inaan bal iftiimiyo oo aan si qoto dheer uga hadlo maadaama aan galir masaafo dheer gal rabno in bal qofka uu fahmi karo meesha u socono iyo waxa naga hore waxay yihiin runtii taasna waxaan ka soo hadalnay qayb aan bixinay chapter 0 oo aan ugu talagalnay inuu qofka yahay qof ka warhaya meesha laga baxayo geediga iyo meesha loo socdo dabcan haddii aan waxay soo dul maro cashirka wuxuu ka hadlay wuxuu ahaa sideen ama maadadan aan baranayno muhiimad noocay leedahay ama nolosha bini aadanka ah maxay u taraysaa waxaan kaloo ka soo hadalnay cashirkii dhaweyto waxaan u bixinay xiriir ka dhexeeyo planninka ama qorsheynta iyo statistics waxa ka dhexeeyo runtii wax badan ka hadalnay qofkii u baahan kaas ku laabo soo faham maanta waxaan u bilowday chapterkan ugu horeeyo ee loo yaqaano chapter 1 loo yaqaano chapterka ugu horeeyo inta galin karo waxaan rabaa inaan bal ku fahamsiiyo ama aan ku bayaaniyo buuggan tixraaca noqono because course-kan waxaa laga qoray dhowr buug laga qoray maybe kumana buug marka hore buugga tixraacayno noocuu yahay inaan ogaano iyo si u yaallo runtii course-kan wuxuu badanaa xoog saarayaa statistics for management for economiga wax la xiriira waay iyo si guud ahaan marka buug waxaa jiro aan soo xulay oo runtii update ah oo 2021 la qoray haddaan qaldaneen marka buuggaas waa buug weyn aad u ballaaran oo dhawaan la qoray oo cusub update ah aad loo soo fududeeyey waxyaaba badanna lagu daray ayaa jira buuggaas bal buuggaas aan ku tusiyo aan ku fahamsiiyo wuxuu soo shaqeynayo dabcan course-kan oo maanta aan labaadka aan bilaabeyno course-kan ee sheegay darsiga ku jirno course-kan wuxuu socon doonaa ilaa iyo 20 chapter waa 20 chapter ka hadlayno waa chapter kastaba nolosha bini'aadanka qayb ka quseeya maanta waxaan hor yaallo chapter 1 waa kii ugu horreeyay bilowga ana kii ka horreeyay waa zero iska wuxuu iska hordhaco laakiin maanta waa chapter ugu horreeyay waa chapter 1 chapter ugu horreeyay hor yaallo wuxuu ka hadlayaa bal inta xarina ku ka hadlo yani buugga aan dhigayno waa magaciisa nacay buuggan saa aragtaanba wuxuu magaciisu yahay statistical techniques in business and economics oo latest version ah waa edition 18 waay 2021 buuggan la qoray marka waxaan dhihi karnaa waa buugga ugu dambeeyey waaye casriga oo runtii ku siin karo waxa loo yaqaan statistical concepts tiro badan marka fadlan buugga tixraacno qofkii baan buugga soo diyaarsan heli karaa marka yani maskaxda ku hayso any book others akhrisada dhegeyso laakiin buuggan waa referencegeena waa buugga ka imaan tusaale ka imaan doono insha allah marka buuggaasna tixgeli statistics maxaa la yidhahdaa marka waxaan daraad ka soo hadlay soo tacriifiyey waxa loo yaqaano course-kan statisticska haddaan si kooban u hadlo waxaa loo yaqaanaa is a sense ama is a mathematical method of collecting, organizing, summarizing, presenting, analyzing and taking decision kaa marka waa ingiriis marka aan ku celiyo soomaaligiisa statistics waxaa loo yaqaanaa waa cilmigaas maxay yani loo maro qaabka xog ururinta hagaajinta soo koobidda soo bandhigidda taxliilinta analyze gareynta kadib go'aan gaarin waay ingiriiska waxaa collecting ururin waay organizingna hagaajin waay summarizingna soo koobitaan waay presentationna soo bandhigitaan waay analyzingna taxliilin waay and taking decision marka waxaa go'aan qaadan karnaa marka aan issue ka hadlayno oo ahaa cilmi baaris ku saabsanaa ama maxay aan u soo marnay si problemskeena loo soo ogaa maxay waxaan u soo marnay xog ururinta organizingka summarizingka
presentinga analyzinga kadib waxaan gaarnay maxay inaan gaarno go-aankeen wuxuu noqon doonaa noocaas marka kaas waxaan ka wadnaa what is statistics marka so many ways loo tacriifiyaa it depends qof buuqa laakiin nuxurka guud wuxuu yahay maxay statistics waa cilmiga loo isticmaalo xog ururinta hagaajinta soo koobidda soo bandhigidda analyze gareyn taxliilinta kadibna maxay go-aan ka qaadano go-aankaasoo kuu sheegi doono what is my problemkayga muxuu ahaa waxaa go-aan gaaray problemkayga noocaas waay again markaa rabo inaan soo ogaado what is my solutionna tabtaa marayna again solutioniska adduunka waxaa u fiican in la helo waxaan dhihi jirnay durable solution xalka waara because problemka haddii xal waara loo helin wuu soo laaban doonaa marka again waa inaan raadin maxay the best solution problemkan soo ogaanay maxay xalkiisa muxuu noqon doonaa ugu fiican si muddo badan ama for lifetime-ba uusan u soo laabanin problemkaas maxay waxaan dhihi jirnay waa same again waxaan raadinaynaa waxaan collect gareynaynaa organize gareynaynaa summarize gareynaynaa soo bandhigaynaa analyze gareynaynaa go-aanka aan qaadan doono noocuu yahay kadib maxay waxaan qaadan doonaa go-aanka oo ah maxay solution xalka kana boona anyway intaas waa tacriif guud aan ka bixinay what is statistics waxaan rabaa inaan dul istaago maxay chapterka ugu horeeyo just waa basic waayo waxaa ugu badan terminolojiyo ama waxaa ugu badan ereyo guud oo maxay uga hadleen maxay koraskaan iyo inta u qaybsamo iyo soo shaqayn doono marka haddaan guda galno waxaa jira markaas goals ama ujeedooyin ama hadaf la beegsanayo qofku inuu fahmo chapterka ugu horeeyo nuxurka uu lahaan doono waxaa ugu horeeyo kow aan ka hadalnay maxay understanding why we study statistics inaan fahamno ugu horeen statistics maxaa u baranaynaa ka waxaan kaga soo hadlay chapterka qaybta ugu horeysay aan u bixinay chapter 0 haddaan ku celiyo waxaan u baranaynaa statistica maxay in aan problemka aan dareemeyno shakhsi ilaa maxay qaran inaan soo ogaa karno anagoo u mareyno qaab cilmiyeysan oo ah scientifica that's why statistics maxay waa course uuna ka maarmin arday kasta wax baranayo ardayguna waa mustaqbalka berito waa in loo diyaariyo arday maxay in sectorka uu baranayo uu ka soo baari karo maxay problems ka soo wajihi karo that's why maxay arday kasta baranayo jaamacadda course-kan looga dhigay inuu qaato 1 iyo 2 jaamacadaha qaar waxay bixiyaan stage 1 stage 2 qaarna 1 waa loo sameynayaa ardayga barna IT baranayo engineering baranayo medicine baranayo whatever uu baranayo maxay waa inuu ardayga la macaamili karaa soo ogaan karaa maxay problemka haysto inuu maxay soo sheegi karaa qaab research marka waxaan dhihi karnaa waxaan u baranaynaa course-ka maxay in la fahmo qaabka waa loo baranayo maxay in arday kasta qof kastee nool maxay mas-uul qaadan kara maxay inuu fahmi karo inuu baran karo ama maxay soo ogaan karo what's my problem asigoo u marayo qaab cilmi baariseed ayay tahay in la fahmo sababta loo baranayo course-kaas waa point kooda point labaad waxaan rabnaa inaan fahmno again in la sharaxo waxa laga descriptive iyo inferential statistics waxaa loo qaybiyaa aslanba laba qaybood waa two major yani parts waa loo qaybiyaa laba qaybood qayb waxaa loo yaqaan descriptive qayb waxaa loo yaqaan inferential marka waxaan rabnaa inaan fahmno qaab yani qoto dheer ah in loo fahmo labada main branchiga ama labada muhiimka ee loo qaybiyo statistics maxay mid kasta muxuu qabtaa maxaa loo isticmaalaa haddaan ka bilaabo midda kale ku sheego mostly course-kayga wax kasta aan sharaxay waxaan isku dayi doonaa inaan ku fahamsiiyo qaabka luqad ahaan loo fahmo iyo qaabka cilmi ahaan loo fahmo taa maxaan ka wadnaa waxaa ka wadnaa shay kastee magac leh magacaas markii laga hadla maxay wuxuu fasirayaa magacaas wax uu yahay wax uu qabto badanaa waxaan sheegnaa markii aan مثلا dugsi sare jira iskuulka ama whatever waxaan maqli jiray inta xasuustaan waagaas waxaan maqli jirnay carif shaygaas luqatan waa istilaaxan tusaalahaan soo qaato badanaa waa sheegaa tusaalahaan fiiri waxaana matala fiiri carif alfiqhu luqatan waa istilaaxan bal sheeg fiqiga luqad ahaan
إيه إصطلاح هانو حلا جود فقه مكلا فقه لغة هانو الفهم و لغة هانو كلا فقه والفهم قف كاس فقيه مع قف كاس فهم و لكن حد من إصطلاحا محل جود معنى هان فقه الفهم بين الحرام حاله مركين اللي فهم الشيء كسحي لغة واصطلاحا تام حكودنا إن الشيء السكريبت في حلا جود لغة هان إيه علمها مركا شيء كسحي لغة واصطلاحا شيء محلو قانا كم محلو قانا صبورة واي مجا عصوا لكن حتى تحول القرآن اصطلاحا مركا إن عدان صوت بدو قالوا حي descriptive كاس وحلقة وذا لغة describe هوا واقع هوا descriptive كا وقاب كمدة statistics كا الله استعماله إن لو قيح بس بحنقيحنا figure number تصالة إن وعندي كلام مثلا في نتات الصوماليات بقولكي و 75 دليل لكن وين كم واي مركز ما واي كم واي مركز descriptive كا وقيحة بس مثلا في إن الشقة مثلا صالحان staff كا حفيز كشغاية بقولكي و 35 وضمر واي بقولكي و 65 نا ورق واي كاس كم بقولكي و 35 وضمر بقولكي و 65 نا كم و female كان و male كاس describe واي لكن there is question why دمركو يرادين هديت ماضو ياك جاوب دون محي inferential مرك inferential كا هرتفير عن كذا لو descriptive كا just و statistical technique لو استعمال محي إن لو describe قريو إن لو قيحو as a number وحي جرو أشياء سابس لك سالو كاني inferential مرك inferential كده قيحنو و statistical technique لو استعمال دونه إن لسه estimations قياس كاسو كيمان دونه from sample to population شان قدام قال له حيمان دونه خيبته sample لكن حاجره يعني inferential كا و statistical technique لو استعماله إن لسه estimation مع سمرنا قياسات estimation كم حكيمان دونه from sample to population تصالح waxaan rabaa qaybta ajarka shaqaalaha waxay rabtaa inay ogaato shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska dareenkooda ku saabsan specific issue tusaale waxaan rabnaa in xafiis shaqaalaha ka shaqeeya aan ogaano cabashada ama dareenkooda ku saabsan yani ama imaashaha subaxi ama bixitaan galabka bixin la baxayo ama qadado kale break time-ka whatever yani specific issue maxay ayaan rabaa inaan soo ogaado ay tabanayaan shaqaalaha ka soo qaado tusaale ahaan shaqaalaha xafiiska shaqeeya taqriiban waa 200 shaqaalo guud ahaan maxay isugu jiraan female iyo male kama waxaan u naqaanaa population marka waxaan rabaa inaan qiyaaso baahida ay tabanayaan shaqaalahaas marka 200 qofood maadaama tirada guud tahay maxaan u baahanahay sample waxaan soo qaatay 9 qofood oo sample ah maxay kuwan sample waa 9 kiyaan la fariistay su'aalaha weydiiyey maxaad tabanaysaan break time xiriga u baahantiin xiriga imaanaysaan subaxii kala shaqada ka warma seeyihiin mukeef ka war korontada ka war qalad see tahay waxaas issue dhan soo gabagaas kadib waxaan soo estimate gareynay problemka ay tabanayaan shaqaalaha guud marka waxaan soo ogaan shaqaalihii inay ka cabanayaan issue-gan saddex issue waaweyn ee waxaan ka soo ogaaday maxay sample-kan marka waxaan soo qiyaasnay problemka 200 qof ay tabanayaan waan soo qiyaasnayo waxaan soo ogaa problemka marna waa saan waa kan saddexda issue ayay tabanayaan maxay shaqaalihii guud marka waxaan dhihi karnaa inferentialku waa statistical technique loo isticmaalo in la sameyn karo estimationkaas ka imaan doono from sample to population marka waxaan dhihi karnaa saddexda issue ayay qabaan shaqaalaha xafiiska shaqeeyo laakiin yaa ii sheegay 9 kan kuwa maxay kuwan waa sample maxay ka mid yihiin 200 waxaan dhihi karnaa waxaan go'aan gaarnay ama waxaan estimate gareynay baahida ay tabanayaan shaqaalaha maxay waa 1 iyo 2 iyo 3 marka statistical technique waaye loo isticmaalo in lagu sameeyo estimation baahida in la qiyaasi karo maxay laakiin qiyaasku ka imaan doono from sample to
population hadhow xalay shaqaale guud waxay tabanayaan qodobkan laakiin maxaan keenay waa true sample waay ka maxaa kaga baxnay inferential aan ku celiyo descriptive-ka waa qeex boqolkiiba intaas waa inta waa qeexisa kribis boqolkiiba 30 waa waxay excellent waa boqolkiiba 20 laakiin markay timaado why waxa u baahan tahay inaad isticmaasho maxay sampling data si maxay aan estimate garan maxay problemka ama maxay wixii ay tabanayaan issuean marka inferential statistical technique loo isticmaalo in la sameyn karo estimationkaasoo ku dhisan from sample to population waxaan filayaa in la fahmay si boqolkiiba boqol waadaxa